تسابق للقيم فالحق يصدح هاهنا ومجالس التقوى علم ومجالس التقوى علم يا سامعين عن الهمم روح تسابق للقيم فالحق يصدح هاهنا ومجالس التقوى علم ومجالس التقوى علم آمالنا بنيت على ذهب التعاون كالهرم وتعانقت أهدافنا جسدا يسافر للقمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهمة العالية. قفك مسلمك أحبتي في الله وقف رميسا diinta xaqa ah kitaabka ilaahay ee runta ah rumaysan waa qof garanaya xaqiiqada noloshan adduunka ah inay tahay daaru ibtilaa daaru imtixaan daariyar oo kooban. qofka muslimkii wuxuu garanayaa risaaladiisa nolosha uu ku leeyahay, risaalada uu gudanayo, maxaa loo abuuray, muxuu u nool yahay, ayaa abuuray, maxaa laga doonayaa. xaqiiqadaasi risaaladaas ayuu gudanayaa, wuu garanayaa qofka muslimkii. wuxuu doonayaa inuu si dhaba u guto, wuxuu doonayaa arladan korkeega inuu raad kaga tago, inuu guto, inuu xaqiijiyo ujeeddada uu u nool yahay. sidaa awgeed fikraddiisu way saraysaa, shakhsiyaddiisu way saraysaa. waxa uu doonayo waa wax sare oo meel sare ku laalan. wuxuu xambaarsan yahay hami ayuu xambaarsan yahay, han aad iyo aad u dheer ayuu sidaa. hamigiisu wuu culus yahay. qofka muslimkii أحبتي في الله وقف حرة أولا وحو كحرو بين نفتيس اسكو ما مشغول سنة ضد بضنبا إياكو اسكو مقن محان حداء محان عباء محان حداء محان فولا محان قاتا العقل بيستان هلا قريقي أيان قلا isaga isku wareegaya, isaga uma isku maqan. laakiin qofka muslimkii waa xor, uu iska sareeya, naftiisa hoos buu soo eegaya, ma cabudayo naftiis. afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaah. ilaahay waxa uu leeyahay bal ka waran qofka naftii hawadiisii ilaah ka dhigtay. wixii loo abuuray, wixii loo keenay, wixii laga doonayay uu ka mashquulsan yahay, isaga isku maqan.
qofka muslimkii waa qof waqti aan u helayn isqabqabsi hoose hadrad iyo hadal aan macno lahayn kana inacab kana ijcal kana ixamanaya kama eed sheeganayo ka sareeya waxa uu doonayo waxa uu u socdo wuxuu hiigsanayo waa wax fog aad u fog qofka muslimkii waa qof xambaarsan hamiga ummadiisa humuumteeda ayuu xambaarsan yahay sidee u badbaadi lahayd horumar sidee u gaari lahayd mustaqbalkeega hamigaasuu xambaarsan yahay waqti uma helayo meelo soke inuu ku meeraysto inna ibraahiima kaana ummatan ilaahay waxa uu leeyahay nebi ibraahim ummad buu ahaa ummad waa nebi ilaah oo keliya ayaa haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa ummad idil hamigoogu xambaarsanaa mustaqbalkoogu eegayey inuu badbaadiyuu doonayey ummad idil ayuu hamigeyga xambaarsanaa ummad buu ahaa nebi ibraahim qofka muslimka waajibaadka laga sugayo iyo waxa laga doonayo ayaa ka badan waqtiga uu haysto waxaa ka badan waxa waajib sugaya waxa laga sugayo waxa uu rabo inuu guto waqti ma hayo faraaq ma hayo hadradi iyo sheeke baralay uu meelaha u ka wadwado ma hayo markuu camal uu ka faaruqo camal kaluu toos u gelaya فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إلهي وحاو نبي عيسى وكل يهي نبي الله مركز جهادك أتكفارق ديت أما صلاة مركز أتكفارق ديت عملك أدهيسيد مركز أتكفارق ديت عملك لقر حق ربك أودو دعاء بدي وحكو سجيا بدن عملك بدن شقدا بدن وقتغو يريه صلاة العشاء مركا تكتت دعادي صلاة الليل بدن باكو هري فإذا فرغت فانصب ما سيدا أيدتك قاركود أيليه إذا صليت العشاء حيث هذا بعد العشاء افعل ما تشاء عشاء يكذب حد دون تسمع ما qofka muslimku amalkiisa wuxuu u gudanayaa si firfircoon waajibaadka saaran xilka saaran arimaha laga doonayo si firfircoon ay ku jirto iyo nashaad ayuu u gudanayaa cibaadadiisa iyo waajibaadkiisa si ikhlaas uu ku jiro iyo wanaajin iyo firfircooni كمنافق عيال ويقنا وهس منافق وهسدا وحو قبنا يا ملك وهسي سابدا عاجز كي سابدا منافق هذا الكيس بديه المنافق وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم إلهي وحولي هدد أردت المنافقين تلكوكو عجب قليل هداي هادلانا تسمع لقولهم هذا الكوغ ودغيسين هذا البنديده اف مشار وحال وليه اسكده هذا تولو داي لكن وحقبت عمل وعاجز وكسلان وليتا ووحسي بديهي قفك مسلم كي اسدا الله الهي مركم منافقين تبو رمي وحاويل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila. markay salaada u kacaan munaafiqiintu waxay kacaan iyaga oo caajisiina, wahsi lugaha jiidaya ayay kacaan. walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala. markay salaada imanayaan buu ilaahay waxay yimaadaan iyagoo caajis. qofka muslimkii waa qof firfircoon, waajibaadkiisa nashaad iyo firfircooni u haya weeyaan. asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu uu ku barbaariyey, uu ku koriyey, uu ku kobciyey inay camalka khayrka ay u firfircoodaan. xataa midkood hadduu faraska uu fuushan yahay oo shaabuugiisu dhulka uu kaga dhaco, hebelow ii soo qaad, kaa dhulka taagan ma odhanayo, isagaa boodaya oo soo qaadanaya. tarbiyadaasuu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. bal nebigu sala allahu calayhi wasalam uu nacayay, ma jeclayn caajisnimada. xataa nebigu wuxuu nici jiray attahaa'um, haamaansigu waa shaytaannimo, waa caajisnimo, waa kaslaannimo. inuu qofku haamaansado oo maanta oo dhan haamaansi in wado. sidaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha yuxibu alcutaas wayakrahu altahaa'um. ilaahay handhisada uu jecel yahay, waa firfircooni. haamaansigana ilaahay wuu nacaa. nebigu waxa uu yidhi idaa tahaa'aba axadukum, midkiin hadduu haamaansado falyumsik biyadihi calaa fii, ha isku dayo inuu afkiisa uu gacanta ku qabto, inuu isqabto, ha isku dayo ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. qofka muslimku waa qof firfircoon, waa qof nashaada. caajisnimo caadadiisa ma aha. sidaa awgeed nebiga ducadiisa waxay ahayd allaahumma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal. ilaahayow inaan wahsi iyo caajisnimo inay heshaan kaa magan galo, waan kaa magan galay ilaahay. ma aha qof seexanaya cunaya, seexanaya cunaya, seexanaya cunaya, noloshiisuba intaa ay tahay ma aha. cun oo cab oo seexo, cun oo cab oo seexo. maxaa lagu keenay noloshan? hadafkaagu muxuu yahay? maxaad u nooshahay? waa inaad isweydiisid. qofka muslimkii waa qof xoog badan, iimaankiisaa xoog badan, cadudiisaa xoog badan, badankiisaa xoog badan, doonistiisa iyo iraadadiisaa xoog badan. iraadadiisa iyo qudradiisa iyo mahaaraadkiisu way xoog badan yihiin. sidaa awgeed nebigu waxa uu yidhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kulli khayr. mu'minka xoogga badan ayaa ilaahay agtiisa looga jecel yahay mu'minka daciifka ah. khayr uu ku wala jiraa, laakiin kaasaa xoog badan. kaa wax qabanaya ayaa khayr badan, firfircoon, nashaad kale, jihaadka galaya, kaasaa khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. kaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu ku barbaariyey. qofki inuu ku dadaalo waxa anfacaya, waxa wanaagsan, uu ka fogaado caajisnimada, wahsiga. qofka muslimku waxbuu fuliyaa, ilaahay buu kaashadaa, wuu dhaqaaqaa, subaxda horuu ka lahaa, wuxuu filayo, wuxuu rajaynayo waa wax fog, wuxuu sugayo waa wax fog, wuxuu garanayaa wuxuu u nool yahay. intaa uu nool yahay wuxuu rabaa inuu wax qabto. sidaa awgeed nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjaz. ku dadaal waxa ku anfacaya, ilaahay kaasho, ha caajisin. qofka muslimkii wuxuu jecel yahay waxyaalaha dhaadheer, waxyaalaha fiican, waxyaalaha sare ayuu jecel yahay.
xidiguhu kor u eegaya qofka muslimkii munaafiqu dhoobadu eegaya hoos u eegaya laakiin qofka muslimkii meel fog ayuu eegaya jannaatul firdaws al-a'la ayuu eegaya adduunka wuxuu eegayaa saxaabtii iyo dadkii waa wanaagsanaa nolosha akhlaaqda fiican iyo dabeecadda fiican ayuu eegayaa hoos waxba uma eegaya nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu macaaliya alumuur ilaahay macaali waxa arrimaha sarsare ayuu ilaahay jecel yahay wa ashraafiha wayakrahu safsaafiha waxyaalahayga hoose xaqiirka ee liita إلهي ونعاه وحاول أحد الشعراء بلغنا السماء مجدا وسؤددا وإنا لنبتغي فوق ذلك مظهرا وحولي وحان قادني صمدة شرف يعني ما ملبا صرف ما السلام قادني السماء وحان ولبا أن رجينينا inaan ka sii dhaafno mid baa yidhi xaggeed u sii socotaa markaad tidhaahdi samadan gaadhnay samadan sii dhaafaynaa xaggeed u socotaa waxa uu yidhi ila aljanna jannada u socona xaggaas hamigayaga iyo fikirkayagu meel sare ayuu ku laalan yahay meel sare oday sacuudiyaan oo da'ah laakiin reer baadiye ah fikirkiisu uu fiican yahay qalbigiisu uu fiican yahay niyadiisu ay fiican tahay khayrka iska jecel ayaa lagu yidhi gaaladii meel bay gaadheen muslimiintu meel ma gaadheen gaaladu waxay gaadheen dayaxa ayay gaadheen oo xanaaqay muslimiintuna buu yidhi meelba ma gaadhin baa la yidhi wallaahi cadceeddaan gaadhaynaa buu yidhi markaasaa lagu yidhi cadceedda way ku gubi habeenkaan tegaynaa buu yidhi habeenkii markay madowdahay maqan tahay ayaan tegaynaa muslimiintu meel fog hamigoogu iyo fikirkoogu meel sare ayuu ku laalayahay meelaha yaree hoose waa dadka liita waa dadka aan fahmin nolosha aan fahmin waxaa la yidhi rum dowladdii weyneed ee rum ayaa waxay soo direen nin jaasuusa oo basaasa waxay u soo direen bilaad almuslimiin dhulka muslimiinta soo eg bay yidhaahdeen maan weerar ku qaadi karnaa mise kuma qaadi karno ninkii dharka muslimiintu soo xidhay wuxuu soo galay bilaad almuslimiin wuxuu la kulmay wiil yar oo ooyaya waxa uu ku yidhi maa yukiik maxaa ka oohinaya wiil yar wuxuu yidhi ramaytu sahman fa akhta'tu alhadaf lee baan ganay meeshii aan rabay inaan ku dhufto ayaa la waayey maxaad u malayn buu yidhi markaan jihaadka aan galo haddii aan la waayo hadafkii aan rabay saa muslimiinta la jabini maayo hadafkii aan leebkaasi aan rabay inaan ku dhufto ayaa la waayey sidaa awgeed baan la ooyaya jihaadkana sidaa uma dhici doonta ninkii basaaska ahaa dib buu dowladdii ruum ugu noqdo waxa uu ku yidhi maa lakum calayhi min daaqatin al'aan xoog ma haysaan daaqad uma haysaan imka iska daaya koogii yaraaba hadda waxa uu ku fikirayo dagaalka iyo jihaadka iyo isku diyaarin iyo ku fikirayo iska daaya waxba isku khasaarin nabiga way inuu hoojinayaan kuwaas way inuu jabinayaan sanado kadib waxaa loo soo diray jaasuus kale la yidhi orod oo soo eg wiil yar oo meel yaroo webi agtiisa ooyaya ayuu u yimid wuxuu ku yidhi maabik maxaa ku yaala maxaa loo yeesaa wuxuu yidhi saaxiibadda baa iga tagtay saaxiibaddii aan jeclaa qalbigaygii ayaa iga tagtay sidaa awgeed baan la ooyaya waan la fikirayaa ninkii intuu qoomkiisii uu ku noqday baa waxa uu yidhi al'aana ukhzuuhum imika weerara imika duul ku qaada weerara imika khalaas
hamigoogii iyo fikirkoogiis meesha sare ku laalla uu soo degay marka habla yaryar iyo meelahaas ayuu ku meelaysanaya. maxaad u malayn maanta jaasuus maa loo baahan yahay in waddamada muslimiinta loo diro si dhalinyartooda loo eego waxay ku fikirayaan iyo humuumtooda iyo waxa ka dhex guuxaya? may uma baahna. waxaa ku filan Instagram, inaad WhatsApp, Facebook inaad yara eegtid dhalinyartu maanta maxay ka fikirayaan. furun waxaa ka dhex guuxaya dhalinyarta maanta hamigooga iyo fikirkoogu meeshuu gaarsiisan yahay. waxaad ka ogaan waxay daawadaan iyo waxay akhristaan. Facebooka waxay isku dirdiraan kaasaad ka ogaan kartaa bas. maalin dhaweyd waxaa la ii sheegayay wiil yar oo 17 jira oo isa soo deldelay. wuxuu isku soo deldelay saaxiibadiiba isaga iska nacday, mid saaxiibkii raacday. mid saaxiibkii ayay raacday. haddaad doonaysid inaad ogaatid dowlad horumarkeega, mustaqbalkeega, xadaaradeeda, quwaddeeda, waxaad dib u jaleecdaa oo dib u eegtaa dhalinyarteeda. dhalinyarteeda eeg iyo ihtimaamaadka waxay siiyaan, waxay ka fikiraan oo waxay ku sheekaystaan oo waxaa dib umu eeg bas waad ogaan kartaa. marka mustaqbalka dhalinyartaas waddankaasi waad ogaan kartaa dad aragtid. waa fasax qaad yar baan iska cunaynaa, maqaaxid yar baan iska fadhiisanaynaa, waa iska sheekaysanaynaa. fanaankii hebel baa yimid, ma maqashay? xidigii hebel ayaa yimid. filimkii hebel ma daawatay? weligii 30 sano 40 sano filim soo daawanaya. muxuu ka hayaa? muxuu ka hayaa? war imisa filim daawatay? imisa filim ma dhammaanayo. waa ciyaar, waa dad ciyaaraya. waxaa loogu talagalay maadaama ciyaar baa lagu abuuray, ma ciyaar baad u jirtaa. hadafkaagii aawe? hadafkaa uu ka weeyaa inta. in yar han eegno jiilu saxaaba. waxaa jiraya wiil yar oo Rabiica ibnu Kacab al-Aslami la oranayay. nebigu u adeegi jiray sallallahu alayhi wasallam. wiil yar oo firfircoon oo nashaada ayuu ahaa. nebigu ku yidhi nebi allah inaan ku adeego ayaan doonayaa. nebigu wuxuu u baahan yahay sallallahu alayhi wasallam markaa buu la soo ordayay. cabigiisu u baahanay uu la soo ordayay. weysada markaaba nebigu la ag taagan yahay sallallahu alayhi wasallam. wuxuu samayn jiray wiilkaa yar albaabka nebiga ayuu ag seexan jiray. nebigu hadduu wax u baahdo si ugu qabto wuxuu oran jiray nebigaan dhegaysanayay markuu alhamdulillah walaa ilaaha illa allah allahu akbar siduu u leeyahay ayuu nebigu seexan jiray. markaan maqli waayo ayaan garanayay nebigu inuu seexday. albaabka agtiisuu seexan jiray. wuxuu u baahdaba nebigu uu la soo ordi jiray. nebigu wuu ku farxay sallallahu alayhi wasallam. wiilkaa yar firfircoon, nashaadka badan, u adeegaya, gurigiisa jooga. wuxuu ku yidhi nebigu sallallahu alayhi wasallam sal wax weydiiso. nebi maxamed oo ku yidhaahda wax weydiiso maxaad oran lahayd? ka yar waa iska baahan yahay, guur buu u baahan yahay. ka yar wuxuu u baahan yahay guri buu u baahan yahay. ka yar xooluu yara baahan yahay. wax badan buu baahan yahay. ma muxuu weydiistay? laa ilaaha illa allah. dumidu ku yidhaahdo maxaad i weydiisan? waxaad weydiisatidba garan weyse. madaxweynaada ku yidhaahdo kaalay sheekh caliya waan sheekh cumar ow sheekh saciidow maxaad u baahan tahay kuu qabanaa? sheekhu wareeriba wax walba u baahan yahay. sheekh guri madaxweyne guri baan u baahanoo, baawur baan u baahanoo, maxay baan u baahanoo, dhakhtar la idiraan u baahanoo, waxaan u wala baahan yahay. waxaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu suuxaba leanna uu wala baahan yahay. waa qof bashara. nebi maxamed baa wiilkan yar ee dhalinyarta ah kule sal waxay weydiiso. waa rasuulka ilaahay, wuxuu doona uu siinayaa. guri rasuul alla guri baan u baahanahay siiya. nebi allow guur baan u baahanahay, dhalinyar baan waad garan dhalinyarta waxa ka dhex guuxay. guur baan u baahanahay. nebigu oran anaa kuu guurinaya. waxaasoo dhan uma baahna. wuxuu u baahan yahay. nebigu ka yaabay ka yar maskaxdiisa.
وحكوري مركز نبياك ولتلي والله قفنا يقول ما تنبيوري نبي الله أسألك مرافقتك في الجنة إن الرفيق ولا نقضى الجنة أي دوني يا رسول الله إن الجنة كلها قالوا هم يجي فكر كي يجي واحد دوني ينهبيني ينرار قصح وكان نبي الله جنة مرافقتك في الجنة يا رسول الله نبيك يا رب وحكولي أو غير ذلك وأرنا أنت أنا أهل ما دي ويدي ستت ما يقول النبي الله هو ذاك وطاع بس رواية لو حاول عرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وحنقرنا يا نبي الله الدنيا كان يمتي قولي يمتي حول يمتي قبل يمتي وحول بوتي كهذا يوم حي الجنة ولما النبي محمد والرفيق لن نقطي جنة الفردوس الأعلى اللقشي حكى في عنه فرصة دي بكفة إيديستي نبي وحكولي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة سجود رواه مسلم سجود يقول كلمة أدوكنا سجود عبادة بتصو أيكولي النبي عليه الصلاة والسلام ويل كاي رفرس وويل ير أردني يرى وحب بدن أردني يرى وحا هيا كده حقو حيا أردن بكتيره لكن هو قبط نفتيس وهرمت همي سو سرايا فكر كي سو سرايا ميل السراء أي كفكريا أنت أن يرتم ميل السك أي كفكريا مال بويدي سنكرا زوج ويدي سنكرا منصب ويدي سنكرا وحول بويدي سنيا لكن حدونيا ماشي أصلا نبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سووا كبر بارين شري همي سراء إني هنكو جنو وينادو وحفق وحسرية وحمعنا له وحقيمة له وحشرية إني كفكران كهميان تاسو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابتي سكبر بارين شري نبي حورن شري وريا وحا سمين وله الجنة أو جنة له أو جنة إلهي ويدية ماها ayaa waxa sameeyno gurisiya ayaa waxa sameeyno ka dhiga maxay ayaa waxa sameeyno lacag siiya ayaa waxa adduunku ma xidhi jiray nabigu hamigooga iyo fikirkooga nabigu meel sare ayuu ku laadi jiray alayhi salatu wassalaam man yaruddu anna wa lahu aljanna wariya ragga naga qabta la dagaalama oo janna aw sugnaat nabigu waxa uu yiri man yujahizu jaysh al-usra wariya diyaarin wa lahu aljanna oo janna u sugnaat من يشتري بئر روما بعالكي روما لورني أيا لو إبن رواية من يحفر أيا قدي وله الجنة أو جنة السجنات نبيو مير سارة فوق شرف له قيمة له أيها أصحابتي سكحول جري كبر بارين جري قولي يا قولي سيا يا العجر سيا وحن ووح الدون وتجي بل حتى دعاء ذا النبي بري جري إن ميل صار مركز إلهي ويديسني سيد محد ويديس تجنّ ما إله جنّة كويديست إله جنّة كويديست النبي حورن جري صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة إلهي هدى الجنة ويديسني لسان فاسألوه الفردوس فردوس الأعلى ويديست جنة ذا يدا وصار يساقون الحيس هذا الإلهي وح ويديسن إنسان شنّا ويديسن إنسان ما لا سك إلهي ويديسن إله شنّا ذا إله النار تيجي فوق يو شنّا ذا ميقول ما إله فردوس أيام ويديست ما يصير هم يجاب وينو ما يصير إله شنّا ذا يقول عرفت واحد ترى هذا اطلب المستحيل يأتيك المعقول اطلب المستحيل يأتيك المعقول دائما ماشى مستحيل كأرادي أدو أرضي باتها وإن رادسين إن النقطين أرضي كوبات بالنقونية والددالية هذا النقون يريد كاللبار كسدحان اطلب المستحيل أدو كان مستحيل كو أركس إنه أدقيها يندون يعني وحكوي من معقول ما ينفي عن بادقل لكن أترى وأن تشحيا وأن ضلعيا إن الدليل ويريد بين بلانته اطلب المستحيل دائما
jannada nebigu waxa uu janno ilaahay haddaad weydiisanaysaa firdowsa weydiis xagga sare hammigii abubakar sidiiq oo kale abubakar sidiiq radiyallahu canhu nabi maxamed baa barbaariyey arday buu ahaa nabi maxamed buu arday u ahaa sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari uu soo saaray xadiisu abi hurayra nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana ahla salaa saxaabtii baa saa u fadhida nebigay dhegaysanayaan nebigu waxaa yidhi war qofkii ahlu salaada ee salaada ku dadaala ee mar walba aakhiro waxaa loogu yeedhayaa markuu jannada gelayo baabu salaa baa looga yeedhayaa qofkii jihaadka ku dadaala baabujihaad baa looga yeedhayaa jannada qofkii sadaqada ku dadaala baabu sadaqa ayaa looga yeedhayaa jannada qofkii soonka baabu siyaam baabu rayaan ayaa looga yeedhayaa saxaabtu midba meel buu ku dadaalaa midba wax yar buu sugayaa ma mid baa nabi salaanta insha allah anu xagga albaabkaasaa laga yeedhi oon malaynaya midba mid abubakar sidiiq radia allahu canhu isaga wax kale ka dhex buuxaya hamigiisu u sareeyaa baabu rayaan iyo baabu sadaqa iyo nebigu ku yidhi yaa rasuul allah miyuu jiraa qof looga yeedhayo albaabada jannada dhammaantood hamigiis albaabada jannada oo dhan 8 albaab ee jannada qof looga yeedhayo rasuul allah ma jira xaggu doonay inuu gaadho daawo nebigu uu ka yaabay saasuu eegay nebigu markaasaa waxaa ku yidhi waarjuu an takuuna minhum nacam haa wuu jira waarjuu an takuuna minhum yaa abaabakr waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqotid 8 albaab oo jannada lagaaga yeedho allahu akbar hamigiisa u fiirso abubakar sidiiq meesha ku laalayahay meesha uu joogo jannaan gelayaa uma aha baabu rayaan baa laga yeedhi uma aha 8 albaab ee jannada ayuu ku fikirayaa hatta tasawwur rajul yaxlu bihadihi alumniyaat qof waxaa ku riyoonaya bal u fiirso hamigiisu uu xaggaa u gaarsiisan yahay abubakar asidiiq maalinkii riddada waad garanaysaa markuu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam dad badan baa ridoobay oo diintii ka baxay dhowr waddan baa maka iyo daa'if iyo meel kale oo la sheego 3 meelood bay dad ku hadheen baa la yidhi diintii intii kale diinta way ka baxeen abubakar sidiiq baa khilaafadii loo dhiibay rasuulka calayhi salaatu wassalaam abubakar sidiiq wuxuu arkay dadkii oo wala ridoobay daa'if iyo maka iyo mooyaane intii kale waa laga baxay wuxuu ka cabsanaya in dagaal lagu soo qaadaba saxaabtii way yaabeen abubakar marka la sheegayo shakhsiyadiisa jir ahaan saxaabi aad u dhuuban baa la yidhaahdaa ayuu ahaa radia allahu canhu abubakar wuu istaagay saxaabta dhexdiisa wuxuu yidhi ciidan baan xaggan u daraynaa kuwanaan la dagaalamaynaa ayanqusu diinu wa ana xay diintu miyanaa qusmi aniga oo nool diintu miyanaa qusmi abubakar saxaabtu way ka yaabeen rag baa ku yidhi yaa abaabakr yaa khaliifata rasuulillaah waxaan u cabsan bay inay raggaasi weerar lagu soo qaadaan may buu yidhi innakaa ku qaadi diintu miyaynaa qusmi aniga oo nool daawo abubakar wuxuu u fikirayaa adduunka oo dhan ayanqusu diin wa ana xay aniga oo nool diintu see u naaqusmi may hamigiisa iyo fikirkiisu meel sare ayuu ku laalayay ayaa barbaariyay abubakar sidiiq ayaa soo saaray abubakar sidiiq madarasaduu ka soo baxay iskuulkeeduu ka soo baxay jaamacadeeduu ka soo baxay madarasatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam ayaa barbaariyey nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed همديسو مال سلك الله ليت نبي محمد إلهي با برباري نبي قل مركي كيا بين أصحابته وحيكون هذين من أدبك يا رسول الله رسول الله أياكو إدبي
هياكو برباري يا رسول الله من أدبك يا رسول الله نبي وحاول أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي باي برباري إلهي باي كبعي كوري إلهي باي صوت صاري نبي صلى الله عليه وسلم همجي سئن يرهن أجنو نبي مالك لغو سودتي يا أيها المدثر قم فأنذر كان استوضوبا يوكع كعبالي للنبي فراش أمدن أدك خلقا أدك أمدن يسعابوديس صدح بقولي اللحن الصنم إن كبدا عابوديس رسول الله إلهي باكو دورت حبيبك إلهي باكو دورت أمدن أدك بالي قم كع هداية الناس أكع بشرية إن الهنون الست إنسانية إن القرمة رسول الله كع إلهي باكو دورت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كعب الليل صلاة بتصو تتكودك قفل مسعود نبي صلى الله عليه وسلم قفل مسعود وكلي وحل دونيا أن ينقذ البشرية كلها بشرية أردن بدبادية وحل عقا وهنتية وهي مجرته وحقوده أود مال النبي صلى الله عليه وسلم عرفينا مانت هدي قفل قوي هذا كع أمد أردن أدك أما هذا ضدك إسلام كبرى إنسا أيانو بهنان لهي ميزانية إنسانو بهنان لهي ضد خبراء فرب بدن دقالة بدن هنتي بدن ضد بدن قوة بدن يالو بهنان لها مدو أردن أدك ضد بدن نالهلو إن تدريبات لبحيو إن محل السمايو إن نبي محمد وكلي صلى الله عليه وسلم وحال يقول يا رسول الله إلهي باكو دورت ومد بدبادي نبي وصركعي صلى الله عليه وسلم فراش كيسيب الله بوعى خديجة وحاكوري يا خديجة ذهب عهد النوم خديجة وقت يقول هرددي وتسري خلاص أنا يقول هردو بسم الله قال صدح إيا الله باطن سنة أي النبي صلى الله عليه وسلم أردي ونرحيس النبي عليه الصلاة والسلام نفتي سيبو أهوري ديكيس يديدكيس دعوة نفتي سيبو سي النبي مالكيسي أيوك بحي صلى الله عليه وسلم هبيني يدرار النبي اسكو حري مرق بائما والبهار بائما مدح حنون بائما حنون بائما وما أبي لي إنه أمد بدبادية قال لماذا أكبد بادية أي دون يا نبي صلى الله عليه وسلم إنما دي سبعد ويلكيسي إبراهيم وعص ويلكيسي قاسم وعص ويلكيسي عبد الله وعص ضعيفة يا نبي عليه الصلاة والسلام وما أبي هوين يريسي عقلك بضنا خديجة أيا دمت وعاص هبليه سي نبيك أيا دنت زينب دمت وعاص قبل سي رقية أيا دمت وعاص أم كلثوم أيا دمت وعاص النبي أصحابتي سيبا للدل النبي وعاص أديرك حمزة وشعله عيال الدنيا وآس أذكى حب بدنا ودن كيسيبا الله قصاري إسقو أويلا صدحية كنت نشيرة أيو النبي مكة وكبح إلى مدينة لك صادق صلى الله عليه وسلم وحبان هيسن سوء مد أقدقو عليه الصلاة والسلام إلى دعوة الإسلام كأفافية وأمد الدين تي وقارسية والدولة الإسلام كأساسي من نس النبي عليه الصلاة والسلام قولي جيسا ما لما سمري
aan cunto lagu shidin bil koobaad bishii labaad bishii saddexaad haweenkiisu u tagaya guriga cunto ka waayey marka qaarkood cunto ka waayey guriga labaad cunto ka waayey asxaabtiisu raadsan jiray qof cunto yar u ka helo qaar baa maalintii dagaalkii qaswatul ahzaab gaaja dhacday dhibaata dhacday dhagax bay caloosha ku xidheen si ay dhabarkoogu u liicin nabi allah mid baa u yimid nabi allah caloosheeda u fiirso dhagax baa ku xidhay oo arkay nabiga laba dhagax ku xidhay alayhi salaatu wassalaam hamigiisa iyo fikirkiisu ummadda badbaadi ayuu ahaa marrabi kursi marrabi lacag marrabi dumar badan oo habla yar yar oo la tunto ka sharaf weynaa ka weynaa ka qurux badnaa ka sareeyay waxaasi nabigu inuu ku fikiro alayhi salaatu wassalaam ilaahay baa doortay khayru khalqillah ayuha hamigiisu xagga ayuu ku laalaa nacam nabigu wuxuu ahaa qur'aanan yadubbu cala al-ard qur'aan dhulka dul socda ayuha haddaad doonaysid inaad aragtid nebi maxamed qur'aanka akhri qur'aanka kuu warramaya akhlaaqda nebigu sala allahu calayhi wasalam qur'aanka ayuu akhlaaqda ka qaatay qur'aanka waxaad heli saaricuu wasaabiquu wajaahiduu wasaabiruu waraabituu degdega khayrka u orda ma jirto caajisnimo qur'aanka ka heli maysid iyo waasi diintiisa taas tarbiyadaasi ilaahay uu ku barbaariyey iyo asxaabtiisa ku barbaariyey waxa ay tiigsanayaan waxa ay rajaynayaan waxa ay doonayaan inuu meel sare u noqdo hamigoogu inuu meel sare ku laalnaado abubakar sidiiq maalkiisii oo dhan buu ilaahay dartii u bixiyey 8 albaab ee jannada ayaa looga yeedhayaa عمر ابن الخطاب نبي وحو شاغ يفر منه الشيطان شيطان كبح صدا وحيغنا ان دور جير ايو وافقي عثمان بن عفان جيش العسرة ايو دياري بئر الرومة ايو مسلمين توئبي قرآنك ركعات قرآن ايو ختمي علي بن ابي طالب dagaalkii badar man yubaarizuni ayuu lahaa yaa ii soo bixi dhufayskii weynaa ee khaybar la furan kari waaye isagaa furti nin muraxab la oran jirayo intee laag oo xoog badan isagoo ina yar qoorta ka gooy xandala isagoo oo janaabaysan ayuu jihaadka u orday waa la dilay malaa'igta ayaa maydhay سعد ابن معاذ ملائكته إلهي عرشيس أيا قريري وحاكسو قد قال جنازتيس تضباطا كن أو ملك عبد الله ابن عمرو جابر أبيه عبد الله ابن عمرو وحلنا وعي oo waran iyo seef iyo lagu dhuftay ka badan 8 jeer yaa jirkiisa la gaarsiin nabad markuu dhintay nabigu waxa uu yiri ilaahay baa la hadlay bila turjumaan Allahu akbar tad himiladoodu sarayso hamigoodu sareeyo ayuu ah المزني كتابك الرسالة إمام الشافعي waxa la yiri wuxuu akhriyay ku noqnoqday in ka badan 500 oo jeer عالم الأندلسي كتاب البخاري وحو ku noqnoqday ku celceliyay 700 oo jeer in ka badan ابن إدريس قرآنك وحو ختمي gurigiisa ku khatimay 4,000 oo jeer in ka badan الشافعي إمام الشافعي قرآن كرمضان كي وحو دمينشري 6 جر أيو دمينشري أحمد ابن حنبل الإمام مالك وحو تكني السنة بس
إن كبضن بين هذا سدح بقل أو ركعات فما يمسلقوك لله أفر سيبوي أعظم كتاب أو نحوه أي قري سجوا أو صدن شرها أعظم كتاب حق النحوه إمام النووي رحمة الله عليه سجوا أفرتن شره أيو دنتي كتبتها فرها بدن سجوا قري رياض الصالحين ما تقال صحيح مسلم يا شرحي إمام النووي ابن حجر العسقلاني كتاب كفتح الباري لبئي صدن صانو أي قري جري سوى مدى وانفعه صحيح البخاري شرحي لبئي صدن صانو أي كقالت مع عاجسي إلى مدى أسوى صاروا لقى فائديستو مسروق وحجي سدو عبادة المدة دالي مسيحني سجودك قمي جري الأسود بن يزيد والصامي إلى وقل فرته أخضر نقضي يزيد ابن هارون سدو أوي عبسي نار توقع عبسان أيو النبي علي ومرة مفس همي يقول حقه كل الله إمام الطبراني أيا دنيارتي وقت جات شوكتي أرضي سيبا وحا كويلي تاريخ ده من يقرأ ها بيلهدين وحان كسو بلادي بيلي وقت النبي آدم إلى وقت جاء شوكلو ويابين ومسك حديث زوجك قري حفظ جيس وحي لهدين إمسا نقون انتاس إمسا ورقضوك بين نقون waxa uu yiri haddaan inii soo gaabiyo 30 kun oo warqadood 30 kun oo warqadood ayay noqon waxa ku yiraahdaa hada mimma tafna al-a'mal qabla tamami sanu akhriyano umriga ma dhamaanba 30 kun oo warqadood manaka waqti u hayna markaas waxa uu yiri ma tatalhima himadiisa ma jirto himadihi way dhintaan dadku himada ma hayaan markaas uu soo gaabiyay wuxuu ku soo gaabiyay 3000 oo warqadood oo madaxiisa wuxuu ku qoray taariikhda weyne at-Tabarani haduna arki laha imaam at-Tabarani maad maxay loo leeyahay ardadiisi uu leeyahay ma tatalhima 300 ayad kali laadihin imaam Malik waxa la yiri waxa yaraa صلاة الصبح مر والبوحو كنت كنشري صلاة ويسدي عشائي أو سو ويسيست انتو او ويسيست ويريت صلاة الصبح عيا وحو كنت كنيس صلاة عشائي ويسدي صدحو أخري وقري وفكري إلى الآدام صلاة الصبح مسكتتك أمام البخاري habeenkii waxa la yiri wuxuu hurdada uu ka toosay habeenkii quraad in ka badan 20 jeer uu toosa faynuus ku shidanaya mas'ala ku soo dhacday uu qoraya uu baqtiin uu yara saxan soo toosi uu shidan uu qori maxaa u maanan qof habeenkii 20 goor toos hurdadaas maxay tahay muusaxday hadduu arki laha maxaa u malayn hadduu arki laha maxaa u malayn سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وحاويلي تكبيرة الإحرام أمامكم يجمهر تكبيرا إن كبضا 40 سنة كنت سنة رواية كلا أفرتا لبضوا وجهنا كنت سنة أمامك الله أكبر جمهور إلا سفك كوبال أنا يقول تالي أيها الله أكبر كنت سنة تكبيرة الإحرام مدافع إن أنت سامالين أويدو سكرة الموت كيس مركز سويد ننت هذه محد ويسا وحنوسو شقي سنة إلي أي انتقينا كنت سنة إن أنت هذه تكبيرة الإحرام جمهور دعي الأحمش تضبات سنة
lagama hor xidhan salaada safka awal buu jira Allahu akbar dad waxay ahaayeen hamigoodu ahibbati fillah xagga kullalaya dhalinyartooda maanta maxay ku fikiraan hamigoodu waa maxay fikirkoodu waa maxay wiil yar u yahay waxaad tiraahdaa maxaad jeceshahay ku siiyaa maxaad ugu jeceshahay oo ku siiyaa mid baan weydiiyey maan dhaweyd wuxuu wallahi sheekh runta masabeen may runta تليفون في عن هذا السيس وكود عين وحا هاي ماري ويديسو تليفون كده مي والله تليفون بيقول ضرب مشكلة هم يجينا وليتا تعالينتا وكل دنا وحخربتا وكل دنا عبادته وكل دنا والبا وكل دنا أما رنت لمصابنت والله وحوض وكريدنا وحنا ممرينا إن أبو بكر الصديق وعمر جنة الجليل أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم إلى علم الطمع يا قف والبا إنه جنة مسكجرة إلى هاي نجي والطمعنا والدوننا إلى هاي بودي سننا أنت سوى حي ربط أحبتي في الله هم السرائن ديالتي هم كانوا وينادوا waxaad doonaysid inuu sareeyo inaad dadaashid hagar la'aan jid dadaal xoog leh inaad la timaadid inaad yeelatid al-iraadatu al-qawiyya doonis xoog badan doon u fikir u orod ku dhaqaaq fuli dhaqaaq waa muhiim iraadadu waa muhiim الدنيا آخرته إلهي وحده من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قفك الدنيا كان دونا إلهي وحده دونا أراد دونا ونرفض يدين إلهي وحده ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كآخرة دونا السعود كيجي قعولة ذي لي مادة ونرفض يدين والله بهية إن لا أرضى إن الدنيا الآخرة إن الدلال فكر ديرادة إن الأمة ده هم جيجا أتقادت هو مركيجا يا مستقبل كيجا إن الديار سلو الديار جرودت إلهي وحول ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة هدي أي دنيا إن البحام إلهي ويسكت دياري الهاي يسكت دياري بس لي من الهاي هذا دونيس waxay ka rabtaa diyaarin inaad isdiyaarisid fikirtid akhridid in badan aad akhridid ducadana aad badsatid ducada inaad badsatid kadibna aad akhridid salafu hadhihi al-umma dadkii waa wanaagsana iyo noloshoodii iyo sida u akhriyin si u dadaalayeen taas muhiim ahibati fillah intaas ayaa ku soo koobi ilaahay hay naga dhigo kuwa himadoodu ay sareyso hamigoodu uu sareeyo hantoodu ay weyn tahay fikirkoodu uu meel fog oo kulaalaya ilaahay ha ka dhigo waxa inaga dhex guuxaya qof walba waxba ka dhex guuxa waxaan inaga dhex guuxaya inuu inaga baxo adiga inuu ka baxo ummadaada inaad fikirtid inaad mustaqbalka ummadaada inuu weynaado inaad diinta inaad jannada taas hadhays taas baaqiya tilka daarul aakhirah naj'alaha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin taas hadhays وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين